السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سو دوادا ومر كله iyo su'aalihayni iyo jawaabihii su'aalihii diiniga ah iyo jawaabihii waaye waxaan rabnaa inaan maxaa dhahaa guda galno soo dhawaada Ramadaan Kariim maadaama ay Ramadaanka ay tahay iyo bishii barakeysneed aan ku jirno waxaan rabnaa inaan asxaabta aan la wadaagno su'aalo diini ah iyo jawaabo isdaba socdo waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo inaan maalin kasto aan soo gelino sida alla socotaan waa cashiro diini ah ilaahay khayr iyo xasanaad naga siiyo idinkana ajir Allah idinka siiyo inta fiirsatay waxaan rabnaa inaan committee-ga nagu soo qortaan wixii sax ah iyo wixii qalad ah anaga bila aadanaa nahay waa khalad waan sameyn karnaa saxna waan sameyn karnaa wiilashan yaryar waa arkaysaan waa wiilal dhalinyaro ah markastana diyaar u ah inay saxaabta la wadaagaan su'aalo diini ah iyo jawaabahooda isla socdo marka asxaabay soo dhawaada su'aalaheena ayaan guda galeynaa aad iyo u mahadsantihiin daawashada quruxda badan la ana daawataan iyo ku xirnaashada iyo dhiirigelinta oo markastaba ana dhiirigelisaan waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantaan marka hore waxaan leeyahay Ismaaciil su'aasha 15aad iyo su'aasha 16aad ayuu leeyahay Ismaaciil waxaa sheegtaa su'aasha sida tan u qoran waxaa sheegtaa saxaabigii malaa'igta soo booqan jirtay waxaa sheegtaa saxaabigii malaa'igta soo booqan jirtay Ismaaciil waxaa sheegtaa saxaabigii malaa'igta soo booqatay dhowr mar jawaabta adiga ayaan ka sugaynaa Ismaaciil soo dhaw inta su'aasha isku dayo Umraan bin Hussein okay jawaabtii aan weydiino Ismaaciil sax iyo qaladba waa anaga ayaa nagala rabaa jawaabteedii wax yar noo dulqaata insha Allah Ismaaciil jawaabta uu ka bixiyay su'aasha jawaabtii uu ka bixiyay waa sax aad ayuu mahadsan yahay waa sax mahadsanid su'aasha 16aad sidan ayay u qoran tahay Ismaaciil waxaad sheegtaa saxaabigii ugu horeeyay ee u hijrooda ardul Habash Ismaaciil waxaa sheegtaa saxaabigii ugu horeeyay ee hijrooda ardul Habash Ismaaciil waxaa sheegtaa su'aashan sidan u qoran saxaabigii ugu horeeyay ee u hijrooda ardul Habash jawaabta waa xagaada inta isku dayo su'aashaas Usmaan bin Affan jawaabtaas oo uu ka bixiyay Ismaaciil sax iyo khalad anaga ayaan ka jawaabi doonaa insha Allah wax yar jawaabtii uu ka bixiyay Ismaaciil waa sax waa mid sax ah mahadsanid aad ayaad u mahadsan tahay waa jawaabtii su'aashii 17aad Cabdikaafi ayaa iskale sidan ayay u qoran tahay insha Allah waxaa sheegtaa Cabdikaafi waxaa sheegtaa waa waxa ugu horeeya ee qiyaamaha qofka la xisaabinayo Cabdikaafi waxaa sheegtaa waxa ugu horeeyo ee qofka laga xisaabinayo camalka uu ku sameystay adduunyada korkeeda shayga ugu horeeyo oo la xisaabinayo sheeg waxaa sheegtaa Cabdikaafi waxa ugu horeeyo ee laga xisaabinayo qofka qiyaamaha jawaabtu waa xagaada Ismaaciil Qowjiis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صدقوا Ismaaciil Cabdikaafi waxaa sheegtaa waxa ugu horeeya ee qiyaamaha qofka laga xisaabinayo
waxaa sheegtaa qafka waxa ugu horeeyo ee qiyaamaha laga xisaabinayo qofka. salaada maasha allah, jawaabtii uu ka bixiyey cabdikaafi su-aashan sax iyo khalad jawaabteeda annaga ayaa nagala rabaa, guddigay u taallaa. cabdikaafi jawaabtii uu bixiyey waa sax, maasha allah, jawaab saxa ayuu bixiyey. okay, su-aasha 18 oo ah waxaa sheegtaa salaada aan lahaynin rukuuc, sujuud iyo rukuuc midnaba aan lahaynin. cabdikaafi waxaa sheegtaa salaad aan lahaynin rukuuc iyo sujuud. cabdikaafi waxaa sheegtaa salaada aan lahaynin rukuuc iyo sujuud midnaba aan lahaynin. jawaabta waa xaggaada. salaad aan lahaynin rukuuc iyo sujuud. haa, soo daa jawaabteeda. su-aasha saddex isku day waxay noqonaysaa salaatu janaasada. maasha allah, sax iyo qalad cabdikaafi su-aashii aan weydiinay annaga ayaa naga sugaysaan asxaabey. cabdikaafi su-aasha aan weydiinay waa mid sax ah ayuu uga jawaabay, jawaabtiisa waa sax, maasha allah. aad ayaad u mahadsantihiin wiilasheena yaryar, aad ayaad u mahadsantihiin. su-aashii 15, 16, 17 iyo 18 iyo 18 intaba si sax ayaad ugu jawaabteen. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. jazaakum allahu khayr. ilaahay ajri iyo xasanaad aan dhammaanayn ilahay idinka siiyo. ramadaanka fadligiisa ilaahay hana barakeeyo. asxaabay waa arkaysaan kulley arrimahayni gabagaba ayay noo marayaan. jawaabihii su-aalihii iyo jawaabihii diiniga ahay maasha allah. waa tixano noo taxan maalin kasto. waxaan leenahay ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin dhammaantaynba ilaahay hanaga siiyo. idinkana sidoo kale dadka dhagaysto iyo dadka ku tixan iyo dadka maxaa la yihahdaa nagu xiran oo dhanba aad iyo aad ay u mahadsan yihiin, waayo dhiirigelintooda iyo jawaabahooda iyo qoraalkooda iyo intaba annaga intaasaan aan ku shaqaynaa. aad iyo aad ayay umahadsan tihiin. soo dhadhawaada. maxaa la yihahdaa wixii dhiirigelin eh committeega noogu soo qora, wixii qaldan noo soo sheega, wixii saxsan noo soo sheega iyo wixii laga bedelayo. su-aalaha haddii qeybo kale loo bedelayo annaga waa naqaanaa, alxamdulilah ilaahay ana baray, noo soo sheega. aad iyo aad ayaad umahadsantihiin. waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. habeenka maalinta ha idin wacnaato. habeenka ha idin wacnaato miya mase maalintii? okay, intay habeen u tahay habeenka idin wacnaado, intay galab u tahayna galabta idin wacnaato. haa, soo dhawaada. khayr iyo caafimaad. ramadaan mubaarak. ramadaanka kii kuwa khayr ku dhamaysta ilahay naga dhigo. xanuunada la sheegayana bandowgana allah naga qaado. annaga gurigaan joognaa bandowga allah naga qaado. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.